hawsha barbilowga u ah dhismaha Ton University Medical ayaa ka bilaabantay goobta loo qorsheeyay dhismaha jaamacadaasi dadka deegaankaasi degan ayaa soo dhaweeyay bilowga dhismaha jaamacadan cusub maanta halkan waxaan ku qorsheynaa ama aan ku calaamadinaynaa anagoo ah dadkii beeraleyda ahaa ee dhulkan bixisay kuna deeqday jaamacadda Ton University Medical City waxaanu halkan garanay in aan dhulkii maanta u banayno sarfiinkii u gelin si ay dhismahaasu u noqdo dhaxalgal kontonka blog oo ugu talagalnay in laga dhiso dhakhtar iyo jaamacadda Ton University Medical bilowgeedii baan taaganay waxaan sheegayaa dadka dibad joogta iyo qolqol joogtuba in ay taageero weyn ka muujiyaan geeska oo dhan bay faa'iido u tahay Soomaaliland oo dhan oo bay faa'iido u tahay dhammaan Soomaaliland iyo Ubaale iyo waxaan ku gobolka Maroodijeex oo dhan baa ka faa'iideysanay mashruucan waxaan doonayaa si sax ah mashruucan oo dhabar adeeg leh oo waxaan ku garab istaag leh in loo shaqeeyo mashruucan oo si cilmi aad baan u soo dhaweynaa hadaan ku joogtanahay moodiyo maal waxaan haynaa waan duliganaa geesta kalena gudoomiyaha jaamacadda Professor Siciid ayaa ka waramay jaamacadani muhiimadda ay leedahay bilowga ahi maanta halka waxaan u nimid Ton University Hospital and Medical City mashruucan oo ah mashruuc ballaaran oo 4 qaybood ka kooban in hadii ilaahay yiraahdo degmadan Ubaale qaybtii ku dhacaysay aanu halkan maanta seeskeedii dhigno oo aanu qorshaheedii gallo qaybta accommodationska iyo qayb clinic kamida iyo qayb hospitaalka kamida intuba ay halkan ku dhacdo oo runaantii dhulkan waa dhul aad u qurux badan oo aad munaasib ugu ah magaranaysa jaamacadan sababtoo ah destinationkii airportka oo aan inaga fogeyn dhakhaatiirtii ajnabiga ayaan rabnay inaan wadalka keeno hoygoodu halkan noqon doono waxay noqonaysaa saldhigga jaamacadda Ton University Hospital runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinaynaa aan la soo koobi karin dadka sharafta iyo karaamada leh deegaanka soo jeeday dhulka bixiyay ku tawarracay ee fahansan ujeedada iyo hadafka guud ee ah in dalka la dhiso capacity-giisa caafimaadka la dhiso horumar ballaaran dadka loo soo hooyo shaqo abuur dadka loo sameeyo mashruucan waxaanu rajaynaynaa ilaa 10,000 oo qof inay ka shaqeeyaan waa mashruuc ballaaran waa hospitaal 750 sariirooda waa jaamacad 1,500 oo arday ay ka baxayaan sanadkii oo lagu tababari doono neeraska iyo dhakhaatiirta halkii aynu caruurteena uga diri lahayn dibadda ayaan doonaynaa in halkan lagu tababaro halkii dhakhaatiirta ajnabiga aynu dibadda u dhoofileen dadkeenu ina halkan lagu daweeyo xanuunku doono qofka qaba ee dhakhtarka hospitaalka Ton markuu qofku yimaado aan la oran maxaan ku yiraahdaa meel heblaayo taga aan la oran maxaan ku yiraahdaa Malaysia taga aan la oran Turki taga